ciidamada Itoobiya ee ku sugan degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa gebi ahaan la wareegay gacantana ku dhigay garoonkii diyaaradaha ee degmadaas. waxaan aaminsanahay Itoobiya inay saaran tahay oo qaaday wadadii uu ku burburay midowga Soomaaliya. ciidamada Itoobiya ee ku sugan degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa gebi ahaan la wareegay gacantana ku dhigay garoonkii diyaaradaha ee degmadaasi. garoonkan diyaaradaha ee Luuq ku yaala waxaa markii hore gacanta ku hayay ciidamada nabad sugidda Soomaaliya oo garoonka amnigiisa iyo maamulkiisaba ee si gaar ah uga warhayay. hase yeeshee markan ciidamada Itoobiya ayaa gebi ahaanba ciidankii NISA ee halkaasi ku sugnaa garoonka kala wareegay amnigiisa, gacan ku hayntiisa iyo xitaa maamulkiisana si buuxda ciidamada Itoobiya ayaa markan gacanta ku haya. ila wareedyo deegaanka oo la hadlay Himilo Somali TV ayaa inoo xaqiijiyay in cabsi la soo dirisay ciidamada Itoobiya ay sababtay in xitaa ay markan faragelin ku bilaabaan maamulka amniga garoonka diyaaradaha. arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli Itoobiya ay dareemeen walwal iyo cabsi ah in garoonkaas haddii aysan maamulkiisa gacanta ku dhigin ay ka soo degi karaan ciidamadii masaarida ee dowladda Soomaaliya ay dalkan u soo wado kuwaasoo bedel u noqonaya ciidanka Itoobiya. sidoo kale sababaha keentay in maamulka garoonka amnigiisa gacanta ku dhigaana waxaa lagu sheegay in aysan doonaynin in dowladda federaalka Soomaaliya saameyn guud aysan ku yeelan degmadaasi iyo maamulka garoonkaba. waxaana tani ka dhigan tahay in Itoobiya faragelin qaawan oo toos ah ku hayso maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya si gaar ah gobolka Bakool iyo gobolka Gedo oo ay joogaan ciidamo fara badan oo Itoobiyaan ah. degmada Luuq oo kamid ah degmooyinka ugu amniga fiican ee gobolka Gedo ayay markan u muuqataa in Itoobiyaanku ay faragelinayaan. waxaan aaminsanahay Itoobiya inay saaran tahay oo qaaday wadadii uu ku burburay midowga Soomaaliya. laakiin waxaan aaminsanahay inay Itoobiya u burburi doonto si la mid ah sidii uu u burburay dalkii la oran jiray Yugoslavia oo u burburay jamhuuriyadda yaryar oo ay kamid tahay Croatia, Bosnia, Montenegro, Macedonia, Kosovo oo hadda adduunyada qaarkeeda aqoonsan qaar aysan aqoonsanayn oo waliba waxaan aaminsanahay midowga Soomaaliya markuu burburay dagaal badan kama dhicin. ruushkaana markiiba quwad noqday oo iyaga kala maareeyay inkastoo ay jiraan dalal dhulal isku haysta ama gobollo raba dal inay ka go'aan. laakiin saaka waxa ku soo kaagacnay warka aadka u naxdinta badan ee ka soo yaray Gedo dhammaan ee laboorada gobolka Gedo gobolka qurux badan ee Gedo waxa la wareegay ciidamada Itoobiyaan ah. waxaan rabaa inaan ogeysiiyo laba isbuuc ka hor William Ruto oo ah madaxweynaha Kenya wuu sii ogaayay arrinkan waa loo sii sheegay Abiy Ahmed iyo saraakiishiisa. Kenya way wargeliyeen Gedo ee labooradeeda ciidamadeena soo degaayo saas la socda dhaqdhaqaaqaasi waxaas ka shakinayna wax isticmaalay. yani waxaan rabaa inaan tuso yasmada loo qabo Soomaalida madaxdeena waxaan idinka u ordin qabiilkayga waa laan dheero waay si loo yasaayo horta fiirinayo. madaxweyne xasan sheekh loo masheeg Muqdisho lama wacin, Axmed Madoobe lama wacin, cid loo sheegay mal waa la iska soo galay hubkooda gaadiidkooda diyaaradooda waaweyn iska soo degay meeshaas iska waxay soo xasuusisay saak markaa soo toos horta arrinkan uu dhacay waxay soo xasuusisay sheekadii Turkiga uu ka sameeyay Syria iyo Iraq mar aan saas u fogeen. Syria Iraq sida ogtihiin koox waxa ka jirto dal dhan aan lahayn laakiin magacooda waxa loo yaqaan Kurds ku lahaay jiro oo iyaga dhaho dhul aan lahayn jirnay dhulkan waa laga xaday. horta saas bala socodin ani waxa ka baqaaya bilaash oo qosla meeshan ay xaduudos ciil ahay kuwa Kurds waxa jiro Iraq iyo Syria sanada badan ka hor sheegan jiray in meeshaas ay deganaayeen dhul qabiilkooda uu lahay laakiin maanta meel ay degaan emailka wax marka waxay noqdeen jabhada ay noqdeen iska dagaalamo. Turkiga jaqda ka gadiyay mar dhaxdaas dhulkii dadkaas ay lahaayeen. Turkiga dhul aad u weyn oo cabir ahaan meeshan hadda Puntland la eg ay Turkiga ka qabsadeen laboro macmal ay ka sameysteen. marka almuhim sababta ay ku sheegay taariikhda Kurdiska iyo Turkiga waxay tahay in ay idin fahansiyo wax la yaab leh ma ahan dunida maanta normal ay ka noqotay in dal dariskaada uu iska kaasoo galay ciidankiisa ku kaansado iska maamusho meeshaas wixii aagaas asaga buffer zone ka sameysana. marka Turkiga aagaas buffer zone ka sameystay qayb weyn oo Syria kamid ah qayb weyn oo Iraq kamid ah. sidoo kale Shiinaha Hindiya mar asaas u fogeen dhul ay ka qabsadeen Shiinaha qabsaday buffer zone ay sameeyeen Hindiya aagaas ma geli karaan diyaaradaha waaweyn militariga Shiinaha yani taariikhda marka waxa rabaa inaan waxaan isku xigtiin. Ethiopia marka Kenya u sii sheegtay dhulkaas marka si kala hadaa warka idinku dhigo ani waxay ila muuqataa saaka Ethiopiaanka si rasmi ah inuu u sameystay wax loo yaqaan buffer zone ka qaybtiisa ugu horeysay Gedo ka sameystay. marka
haddii aad maqashid eelaboor dal eelaboor waa meesha ugu muhiimsan ee la qabsado markii dal la qabsanayo horta saas mala socotaa markuu maraykanka ciraaq ku duulay meeshii ugu horreysay uu qabsaday bagdaad eelaboorka bagdaad ay ahayd weliba waagaas haddaa xasuusatid aljazeera dadka xasuusto iyo cnnka iyo markii eelaboorka bagdaad la qabsaday habeenkii waa la jiifan waayo waa la qabtay bagdaad eelaboor la qabtaya magaalada dhan aa la qabtay ku leeyihiin waana sax haddii eelaboorka dalkaas la qabto ama magaalo la qabto waa ku daysa magaaladaas saas la soco xitaa dekada muhiimadda ma aha maxaa yeele eelaboorka waa meesha diyaaradaha waaweyn taangiyadooda balaayadooda ay kusoo degaan marka saaka soomaali fara badan oo arrinkan ka hadlayso oo halis u malayso umaba jeediba waa halistii ugu xumeyd waa 100% halis waay eelaboor in ciidamo cadowa oo shisheeye ay qabsadaan ee iyaga maamulaan waxay rabaan kasoo degsadaan saaxiib gedo saaka waxay si rasmi ah u noqotay buffer zonka qaybtii ugu horreysay etoobiyaanka uu ka sameynayay aagaas sida turkiga uu sameeyey oo kale walaalayaalow buffer zonka waxaa lagu gartaa turkiga markuu syria iyo ciraaq qabsanayay buffer zonkaas uu sameynayay dadka uu wacay waa ruush iyo maraykan ma uusan la xiriirin madaxweynaha syria jooga iyo madaxweynaha ciraaq jooga lama xiriirin yasmosankaa la taagaya aniga tii ayaa nagu socoto taas ila fahma horta waxa soo socdo waxaan dhan ani igala sii daran etoobiyaanka waxaa igu maqaalo ah in dhoolatus military ee la samayn doonaan somaliland adi marka warar halis ah ayaa nagu soo fool leh isbuucii soo socdo barnaamijkan soomaali kaabo ku taxnaad waxaa u jawaabeynaa kuwan iska hadlo adduunka taariikhda iyo waxa ka socda adduunka aan ogeyno masar maxay falastiin wax u qaban la'daa soomaaliya horta nimiyo masar taariikhdeeda inaa fahantiina ani ila fiican walaalayaal wax aqriya aniga habeenkii wax dhafraa indhaa dhafufuuri masar 1948dii balaaya ka dhacday dhulkaas horta 1948dii waxaa dhacay dagaal lagu baaba'ayaa dhacay oo loo bixiyey dagaalkii carabta iyo israa'iil israa'iil ogow 1948dii weli waa aaskeeda ay ku jirtay awood saas u weyn ma lahayn 3 sano kadib dagaalka labaad adduunka le waayba adduunka dhanaa soo kabanaya masar way fahansaneyd halista meesha kasoo socoto iyo yuhuudda haddii meesha ay ku faafto ee ishubeyso halista ee yeelan doonto masar way sii ogeed masar isla markii waxay ku duushay dhulkan hadda yuhuudda ay haysato israa'iil loo yaqaano ciidamo masaraa dalaq dhahay talaafiifta la sheegaayo ciidamo masaraa ka dagaalamaya 1948 mala socotaa masar dagaalka ay ku jirtay waxaa soo geli waayey oo diiday sacuudi baktigii sacuudi ahaa baktigii ciraaq ahaa adi carabtii kaloo dhan way diideen dagaalka inay soo galaan masar dagaalanta dagaal ciidamo fara badanaa ka dhintay laakiin masar way qabsatay qaybo badan oo ka mid ah meesha yuhuud ay haysato masar ciidamadooda ku sheexeynayay sigaarna ku cadaay hadda meeshan qazo loo yaqaano masar ciidamadeeda ayaa fadhiyey muddo sanada ah ayagaa maamulaya meesha hadda qazo loo yaqaano markii dambe cadaadis fara badan oo maraykan kii ingiriiskii iyo balaayadii uga timid oo qaab heshiis ah ee masar iskaga soo baxday in dhulkaas falastiiniyiinta lagu wareejiyo marka falastiin halahan yar hadda ay haysato walahi kaftan ma ah waxan halahan yar falastiin hadda ay haysato ay u dagaalamayso qofka ugu weyn ee usoo dhiciyey masar u ahay mugtar niyo waxa ila socotiin male ka gudub jamaal cabdinaasir ilaaha u naxariisto madaxweyne sharaf badan karaamo ilaahay u siiyay saa aaminsanaa ninkaas wuxuu kulmiyey qaahira ayadoo la joogo wuxuu isugu yeeray wixii carab ahay oo dhan kaali oo dhanimay qolkaas soo gala boqor xuseenaa joogay kii jordan kii sacuudigaa joogay ciraaqaa joogay syria adiga jamaal cabdinaasir damiciisa wuxuu ahaay hal dal oo carab ah oo hal maamul leh in la sameeyo oo loo yaqaano united arab republic ayuu rabay inuu sameeyo qolka ayadoo lagu jiro shirka uu furmay oo sheekada ay bilaabatay sida dal weyn oo carab ah sida si macnaha loo laqo yuhuudda cadaadis loo saaro koorno loogu qabto ayaa wuxuu sameeyey waxaa soo booday boqorkii xumaay boqor xuseenaa soo booday jordan sheekadii oo socoto ayadoo la rabo sirq in loo dhigo yuhuuddii boqorkii jordan kulahaa jamaal cabdinaasir oo inaa idishidaa damacday niya sooxuuda jamaal cabdinaasir wuu yaabay iyadoo sheekadii aysan dhammaaninba kii sacuudigaa soo booday war niyow amba waa kaa shaksanaya kulaha kii sacuudi jamaal cabdinaasir ow niyow inaana dishid maad damacsanta war meeshii loo imaaday in dowlad lagu dhiso carabta lagu mideeyo waa awood fara badan ilan halista yuhuudda soo socotaa la ogaaye carabtii waxay u bilaaweenba isqaqabsi sidii gabdho meel isugu imaada camal gabdhahan hadda tiktok ku dagaalama aragtaada oo maaldhaxas la xiray sheekadii oo kale ayay carabtii qolka ka dhex bilaaween
والله بلا وإدل ربط والله وإسترق والله إيش شيء أنت كدع جمال عبد الرازق وحده بح أبي وسقول كان يقبح ويبحن ويسكعرر horta taariikhda inaa fahantiin ayaa muhiim ah masar aan siino inta juhdi iyo dadaal ay samaysay si dhulkaas loo xoreeyo marka haddaa idiin soo koobo masar carabtiyaa ku xumaysa way rabtay inay dadaasho falastiin wax u qabato laakiin carabtii jiq ooga dhigtay macnaha midda kale masar jeceyl ee soomaali u qabto kuguma imaanin saaxiib hortaas fahan waxan waa siyaasad cadowgaada cadowgiis waa saaxiibka aabal dhahaba iyada dhankan webiga etoobiya isku haystaan waxay rabtaa Ethiopia inay ka aarsato xaasidnimo aniga noo imaadeen aniga madana noogu jirto bis nooguma jirto dana noogu jirto maxaa yeelay Ethiopia oo kugu soo socota kugu soo shaqeysa haddaan iska waabinin oo aanan la dagaalamin oo aadan u istaagin hay waayahay sida kurdishka oo kale maarata ina saacado iskaga jiiftid la iska ka baaba'sado dhulkaada la qaato munaafiqiintan kugu soo batay wax anaad maanta waxa aaminsanahay masarta la sheegayo jacayl inayb waxa taaba ahaato kuwa Soomaali ah siyaasiyiin dalka nala jooga iyaga nooga fiican aniga aaminsanahay maxaa yeelay munaafiqa jaajuuska ah waxa ku dhaamo qofka shisheeye ee asaga dantiisa adiga ka dhax arko adigana kulay dantaada ay ku jirto war intaas faham dawlad baydinta hebelin anaga dawlad Itoobiya nooma dawladna xasuuqna gumaadana gowracaan dadkana rugtay weeyaan ma hadii dadkana kala sariftay dawladu waati dadka sharfisa waati dadka soo dhaweysa waati waxaysa anaga Itoobiya weyna laagtay Itoobiya laga qabtaan leena anaga Itoobiya anaga yacan ka codsi ka taaganay Itoobiya laga qabtaan anaga codsi ka taaganay murugiyo ciid baan taaganay wadanka markaan soo xasuusto maskaxda waxay dhimaya markaan wadanka soo xasuusto muruga ومسكها وحي دم يا قبلي محابستي مركان سو حسستي ويلاشي أنا وحن أنا قرالي عفكود أنا قرالي يوتيوبيان يا وحاسي أم حارة كودا يري كودا وين النجاس اللي وريك يعني مال والبوافد يا مال والبوكو كاتشا رمضان يوتيوبيان كأننا كحيو خديان بالله بأنه كتاعن هاي غلارتي حضيان المها يدفيان ضدك حولي سبح حتى لما يستونوا عنيان يقول وحوي حاب كيف قرانيان إذا بدر ودنك لا تاجيهين ودنك هذا مستوى عن كوجلا ودنك يانا مستوى عن أي كوسجلا. مدحبين مرة من إثيوبيا قرية شقالين تحكي جوجا $100 أن عذر بين وهايان مدحبين روان رفاضيان أنا مدون أورما يو مدون إنه واحد أنا قرالي عفكود أنا قرالي إثيوبيان يو وحاسي أم حارة مدون إنه أدانا أنا قلنا الشعب كبلان بنام بحمك سمينا وحرنا أنا قصدا أنا قدوم تاني ماشي ولاش يركع كشقي سلايان أو كائن أجو شقين لايان وحاق بصدا أم حارة يو دد أنا قرالي إنه أنا رديق هاي وواحد نقصو كلنا أنا تشيلين مركب مدن مدحوين وحن كلها هاي عدكينا وأركض دون تاني أنا نقصدي هوي نبعه وحكوات أنا نقصرت باربطة باربنا ماشان أنا قداني الشعب كبلان مدون هاي نضد كلام ما نرمنا أنا قاعد أسكفلان أنا قاعد أسكفلان هاي لقطة 6 طبعا أنا قاعد أسكفلان توبيان كنا ذلك عاد بيوصل بدن عيان بالشدينا ولا قبصدين كودا يري كودا وين النجاس اللي وريك عيان مال والبوافد يا مال والبوكو كاتشا مال والبوكو حرايان فوحنا وح عدسنا إن توبيان كان سيدا وقول خصيها بدن لوجا سارة شقدي ولا وريجين دلنيرادي باهيدا حوك كحوك سنجرت ولا وريجين قفل بقى نسمك شقين شري oo qaadan jiray $10 ama 15 waxay oranayaan $5 baan ku shaqeynaa fariinta dawladda u dirayna waxa weeye in Itoobiyaanka sida ugu dhaqsiyaa badan ooga saaraan Soomaalidii baa baahan Itoobiyaankiiba xooggoodii magaalada ku la wareegayso oo masaakiinta $5 $15 dhismaha ku shaqeynaysa waxay oranayaan $5 baa inagu dhiseena marka mudan madaxweyne Itoobiyaanka in laga saaro u baahanahay juudaanayaasha ku badan caafimaadkooda uma wanaagsana meel walba waa ku xaraayaan meel walba ku kaajayaan Itoobiyaanka in laga saaro codsanayna dawladda sharafta waxaan ka codsanaynaa Ramadan Itoobiyaanka inana ka kaxeeyo khadiyaan billaah baanu ka taaganahay غلارتي حضيان المها يدفيان dadka xoolihiisa ba xataa dhameystaan cunayaan iyagoo cuurin biyo cuurin cunayaan marka waxaan dawladda ka codsanaynaa in la ka kaxeeyana ka ambiyo wadankooda inuu geeyo caasha waxaan noogu soo ordayaan baan la yaabanahay anagu dad baa wada Soomaali kala wada oo soo gooshisiinaysa oo soo kaxaynaysa Soomaali ka wada oo lacag ku qaato soo kaxaysanaysa waa saawalanayaan inahan waxay noogu hayn waayeen annaga baan tartamayaan hadda ragoodii ma jooga way baxeen ragoodii way joogan maatadoodii baa jooga dumarkoodii baa xaruuroodii baa jooga raggan arki jiray hadda ma joogan waxaan isla siyaasad bay ku maqan yihiin baan isdiri ma garata saa weeye walaal waxaan rabnaa Itoobiyaanka in la ka raro waxa
waxa weeye in la ka raro Itoobiyaanka kii tuugsanaya tuugsi wuu waayay wiilka yarka baalashlaha baalash wuu waayay waxa weeye xaxaabkii bay guranayaan edab daray wadanka la taagan yihiin wadankooda mustawaqan ku galaa wadanka yana mustawaqa la'aan baa ay ku soo galaan waxa keena gawaarilayda waxaan halkaa ka sheegaya oo codsi ka bixinaya gawaaridaydu inaysan soo qaadin kuwa wadanka joogana nala ka raro oo loo sameeyo ciidamo dhalinyaro oo wareegta oo aysan wadankeena ku soo galin mar dambe haddana in madaxweynaha Puntland Cabdullaahi Siciid Dani waxaan ka codsanaynaa inuu si tartiib ah nooga raro iyo maamulka magaaladu inay naga raraan dadkan baan ka codsanaynaa waxa weeye kuwa gawaarida oo lacagta ka soo qaadanaya oo nagu soo daadinayaan inaysan noo soo qaadin baan rabnaa qofna lukagama imaan karo jigjiga iyo ka kor aniguba kuma tagi karo madaxweyne waxaan nahnay shacabka Puntland joogta ma fahamtay mudane waxaan ka rabnaa inaad naga saartid oromada shalay guri kiraaba raasaday marka raasaday waxa leeyahay yiri tamiin kayso anoo Puntland u dhashtay oo muwaadin Soomaaliyeed ah waxa leeyahay yiri kira kayso waxa kaysataa damiin shalay marka la imaan waxa leeyahay yiri guriga waa la dagay Itoobiyaan baa dagay mudan mana qabataa inaan guriyihina shalna la dhahnay damiin kayso Itoobiyaankan hoos laga kireysto mudan ma qabato mudan madaxweyne ma rabno Itoobiya guriyaha shaqaaleynta waxay ku joogaa $30 cudur been ugu hayaan mudan madaxweyne rawaan rafaadiyeen mudan madaxweyne ma rabno aniga Puntland haddaan maanta shacabka Puntland nahnay maanta ugu dambaysa codkeena hadaa wax ka soo jawaabay mudan madaxweyne ada arki doona shacabka horaan waan ku duuleynaa insha Allah waxaanu ka kacaynaa oo rabnaa in la ka saaro oromada lacagihii lagu qaldamay ma ay siideynayaan ma rabno waa ka soo jeednaa hadaa caanooleynahay hadaa hilib leenahay hadaa shahleynahay hadaa kulli waa ka soo jeednaa waxa weeye in la ka saaro rabnaa oo ka saarna waxaan sheegayaa shaqadii masaakiinta la wareegeen ninkii $10 ku qoday $3 baa lagu shaqeynayaa $3 baa lagu shaqeynayaa oromadii baa la ciirsaday dadkii masaakiimaha iyo wuxuuna waa la wada ciiriyay marka waxaan rabnaa inaan nal ka saaro mana rabno mana doonayno waana ka hadlaynaa hadda marka waxa weeye saasaanu ka bedeleynaa ka rabnaa dawladda ka codsanaynaa bulshada ka codsanaynaa masaakiimihii iyo wixii meelaha waxaan ku raraa $10 ku shaqaysanayay bay maxaan ku raraa $3 la yiri dadka guryaha dhisanaya kii suulo qodanaya iyo kii maxaan ku guri dhisanaya